Halkan waa janaalka gaarka aan leeyahay ee Baakacde. Waxaan maanta eegi doonaa warbixin aan kaga hadlayno Daahir Maxamuud Muuse Dayaxdan Nuurshe, fanaanka caalamiga ah ee reer Muqdisho. Waxaana aan u eegi doonaa waxyaabaha ku saleysan noloshiisa. Warbixintan ayaan ka diyaariyay. Daahir Maxamuud Muuse waa fanaan ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed, gaar ahaan fanaaniinta ugu caansan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ma eegi doono waxyaabihii uu ku soo caanbaxay, sida uu ahaa, sida uu noqday, balse waxaanu fiirin doonaa waxyaabaha ku saleysan horumarka xaaskiisa ay la gaartay Daahir Maxamuud Muuse. Ma aha wax lala yaabo in bini'aadamku uu qurxanaado muuqaalkiisa, midabkiisa iyo isteelkiisa mar haddii uu helo nolol ku dhisan qanaaco iyo lacag kaafisa nolosha qofkaasi, isla markaana uu dago guri uu ku yagleelo nolosha qofka isagu uu jecel yahay. Ma jirto qof la dhalatay madow ama caato, sida waqtigu uu isku bedelo ayuu dadku muuqooduna isku bedelaa. qof walba oo helo qanaaciyo nolol dhameystiran waxa uu haystaa kalsooni iyo farxad waarta, waxaana uu sameyn karaa horumar walba waxa uu haminayo sida uu Dayax horumar uga gaaray fanka markay noloshiisa ku biirtay lamaantiisa Farxiyo. Haddaba farq weyn ayaa u dhexeeya noloshiisii hore ee Dayax iyo midda hadda uu ku nool yahay. Dayax ma aha qof awaalac ah, mana aha qof jisaar badan, sababtoo ah waxa uu jacayl dhab ah oo ku kooban lamaantiisa u qaaday Farxiyo oo qayb ka ahayd horumarka uu ka gaaray fanka iyo nolosha. qayb weyn ayay Farxiyo ka qaadatay isteelka iyo isbedelka nolosha ee Dayax. Haddaba adduunku yuu ugu jecel yahay Dayax. وهيلو خير اختيار قبل لقوا ما بيهو اهلو قدقين وبحوية فوق بيانكاكو indhahayga arkaa ku ildogsadayo ma iloobi kare ishcalaa qurux leh ubaxweeye ifoobya aan ka arko indhahayga arkaa ku ildogsadayo ma iloobi kare ishcalaa qurux leh aqalala galoori laga dhigtaa runtii waayada. Dayax waa bini'aadam, waxbana kuma dhaamo kaamana duwano. Sidaad adigu jeceshahay ayuu isna jecel yahay una sameeyaa. Mar walba waxa uu jecel yahay in ay garab taagnaato Farxiyo oo ah lamaantiisa marka lagu casuumo caruusyada. waxa uu ka fogaadaa gabdhaha kale oo uusan waqti iyo juhdi iyo dadaal uusan ku bixin, iyo xitaa eegmada wararka qaar. Waxa mar walba u muuqda Farxiyo oo uu adduunka ugu jecel yahay sida uu ku muujinayo muuqaallo uu baraha bulshada ku duubay. Haddii bini'aadamku abaal leeyahay, waxa abaal yeelan lahaa dad badan. Abaalku ma aha kaliya in qofka uu ku siiyo ama uu ka dhigo mas'uul, laakiin waxay tahay in qofka kuula garab istaaga. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan subscribe saar page-kan, like iyo comment inoo raaci si muuqaalo kala duwan aad mar kale u hesho. mahadsanidin.